بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلهاي ميل بدونيدا كجوجتي كسو دواada qaxootiga dhadhaab channel fadlan waxaan kaa codsanaynaa subscribe inaad noo saarto like noo saar noo share diray muuqaalkan insha Allah aan ku bilaabo qodobada aan ka hadli doono insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah qodob koowaad waxa way dadkii baahanayaalkii oo bishii soonta Ramadaan dhexdiisa oo la siiyay boono yar oo cad la siiyay oo hadda raashin ku qaadanayaan oo la siin doono taar oo birito loo shaqeyn doono oo la siin doono taar ayaa loo siin doonaa taarkaas oo ku qaadan doona raashin iyo wax walba ay ku qaadan doonaan qodobka labaad aan ka hadli doono waxa warbixinada u dambeeyay boofista xeryaha qaxootiga dhadhaab aan ku bilaabo dadkii baahanayaalkii ahay ayaa oo la diiwaangeli doono birito oo shaqada si toos ah u bilaaban doonto saddexda xaro ayay shaqadan ka bilaaban doontaa isbuucan gudihiisa laakiin birito waxay ka bilaabanaysaa dhagaxley insha Allah dhagaxley ay birito bilaaban doontaa insha Allah xay dheer iyo fan insha Allah way ku xugaan insha Allah isku mar ayaa la wada shaqeyn doonaa laakiin hadda dhagaxley ayaa la hormarinayaa maadaama shaqaale ay ka dhiman yihiin xay dheer iyo fo dadka boonada haastaan boonada laba nooc way dadkii boonada hore haysan jiray lama rabo dadkii boonada u dambeysay oo tirkoob u dambeeyay qaadanayeen ayaa loo shaqeyn doonaa birito haddii Ilaahay na gaarsiiyo faldan haddii aad boonalay tahay sidoo kale waxaa la rabaa dadka loo shaqeyn doono section ayaa loo geli doonaa su'aalo badan ayaa la isweydiin interview ayaa la mari doonaa faraha ayaa la shaqeyn doonaa shaqada way culus tahay birito waxaa loo shaqeyn doonaa section A iyo section A11 marka bulshada walaaladeen waxa uu sheegaynaa dhammaan dadka boonada haystaan inay runta sheegaan sababta tahay dad waxa jiraan haddii aad qof deegaan aad tahay oo tabaana haysto tabaana inaad haysto sheego oo aad duruuf wax ku geystay haddii oo taartaada horaan ka dhacay oo taar inuu ka dhacay sheego sababta tahay waxa dhan hay'adda way ogsan tahay hay'adaha samafalka sida UNHCR system trade way haysataa marka nin walba dhibkiisii wixiisa sheegto insha Allah taarta waa la siin doonaa dadka dhammaan waa la wada shaqeyn doonaa laakiin birito waxaa lagu bilaabayaa section A iyo section A11 ayaa lagu bilaabi doonaa marka birito dhagaxley laga bilaabo waxaa la rajeynayaa xag dheer inay ka bilaaban doontaa khamiis ama jimco ayay ka bilaaban doonaa ifiya xag dheer khamiis jimco ayay ka bilaaban doonaan si joogto ayaa loo shaqeyn doonaa saddexda xaro marka sidaas ula socda fadlan haddii mar kale aan kusoo celiyo aad muuqaalka ku cusub tahay fadlan ama marka u horeysa ana soo booqatay fadlan muuqaalka kala bara ayuu marayaa subscribe ta naga hilmaamin like noo saar noo share diray sababta tahay adiga wax faa'iido wax dhib kuma fadhiyo wax qiimo ah kuma fadhiyo subscribe ilaa laakiin agteena qiimo badan ayuu ka fadhiyaa waana ku mahadsan tahay booqashadaana soo booqatay waana ku mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah marka wararteena kale aan ku daro sidaa ula socotiin insha Allah boofista xeryaha qaxootiga dhadhaab si xoolo ayaa loo bilaabi doonaa bisha shanaad ayaa lagu jiraa hadda markii loo dhameeyo dadkan baahanayaalka loo shaqeeyo ayaa waxaa la bilaabi doonaa sida la sheegay kiisas cusub oo face to face iyo dad horaan wax u maray oo GFA iyo INS iyo dad oo horaan oo wadamo kale oo sida Yurubta wax u mareen ayaa la rajeynayaa rajadaas ayaa rajo fiican ayaa la qabaa laakiin ilaa hadda wax warcad oo si fiican soo baxma laakiin balse sida xogta la sheegayo bisha shanaad hadda aan ku jirno markii dadkan baahanayaalka loo dhameystiro loo shaqeey kadib in kiisasta interview oo la bilaabi doono boofista laakiin qaybaha ay kala bilaabi doonaan waxaas lama sheegin laakiin waxay dhaheen shaqada waa la bilaabi doonaa sida caafimaadka dad ayaa xataa flight Canada loo yeeri doonaa bishan dhexdeeda marka shaqada way isdaba saaran yihiin wax qeyr Ilaahay ka dhigo insha Allah dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo wax sugayaan oo nin walba muraadkiisa Allah u sahlo marka insha Allah dadka qaxootiga si waxa loo joogo kaliya waa waxbarasho iyo dib u dejin inaad wadan saddexaad aad oo shaqaysto horumar gaarto marka wadankeena wali waxa la jiray dhibaato iyo wax ka jira Ilaahay nabad ha nooga dhigo insha Allah Ilaahay nabad ha nooga dhigo marka sida uu inii sheegay waa midaas sidoo kale dadka baahanayaalka xaafadaha joogaan fadlan muuqaalka u sheeg gareeya birito waxaad imaan karo kaliya section A iyo section A11 bes dadka dhan inay wada imaadaan lama ogolo badan ha soo lugu ina section A haddii tahay iyo section A11 haddii tahay fadlan birito imaaw faylkaada xilli fiican gal si aan lagu shaqeeyo birito shaqada si toos ayaa lagu bilaabi doonaa shaqaalaha way badan yihiin marka shaqooyinka waa si fiican ay UNHCR u wadaa dadka waxaa la siin doonaa raashin oo raashinkiisa wax walba ku qaadan doonaan insha Allah marka waa arin farxad ay dhammaan ummadii sugeysay oo ku haminay in taar la siiyo marka fursadaha waa fursad fiican oo qaali ah marka insha Allah sidoo kale waxaan idin sheegayaa in dadka boofiska sugay fadlan telephone numberadiina hala daarnaado fadlan telephone numberkaada waa muhiim sidoo hore wax la soo dhajin jiray la isku wici jiray hadda ma jirto telephone laga soo wacaya fadlan telephone laga soo wacaya marka telephone kaada diyaarsada mar walba ku daarnaado telephone kaada ku shidnaado
insha allah waana mahadsantihin insha allah muuqaalada waan soo badin doonaa insha allah sidoo kale insha allah waxaa jira masjid oo dhagaxley la xiriyaha qaxootiga dhadhaab laga dhisay gaar ahaan dhagaxley oo masjid abubakar lahayo insha allah wixii sadaqa ee aad awoodana insha allah sadaqayso sadaqada way fiican tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed